بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد maanta waa munaasabad aan ugu talagalnay in aan dhar ugu qaybino arday amba caruur agoon ah oo gaaray ilaa iyo 100 caruur ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal 50 gabdhood iyo 50 wiil haddii aan nahay walaalaha Maamud Foundation dalka iyo dibaddaba kala jooga waxqabadka Maamud Foundation haddii aan wax yar idinkaga taabto maadaama bishii barakeysneed ee Ramadaan aynu ku jirno waxqabadkii bishii Ramadaan oo kaliya aan soo koobi karinba waxaan rajeynayaa insha Allah inaan idin soo koobo waxyaabaha ugu horeeyo Maamud Foundation ay qabteen waxa kamid ah goobihii waxbarashada amba qaybihii waxbarashada haddii aan qaybaha waxbarashada ka hadalno waxaa jiro xarumo fara badan oo Maamud Foundation hoos yimaada caruur agoon ah iyo kuwa dan yarana wax lagu baro sidoo kale waxaa jiro goobo waxbarasho oo dad waaweyn wax lagu baro farsamooyinka gacanta gaar ahaan cilaansaarka oo kala harqaanka oo kala caafimaadka oo kala saxaafadii oo kala iyo farsamooyin fara badan oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka waaweyn ee aanan haysanin qarash ay wax ku bartaan iskuulaadka haddii aan idin soo koobo magaalada Muqdisho kaliya waxaa ku yaala xaruntan hadda aan idinkala hadlayno waxay ku taalaa degmada Yaaqshiid waa xarunta ugu weyn Maamud Foundation waxaa jooga arday agoona dugsi Qur'aan lagu baro ilaa iyo dugsi hoose iyo dugsi dhaxana lagu baro sidoo kale waxaa jiro qayb ku taala deegaanka Goboley gobolka Banaadir kamid ah waxa wax ku barta sidoo kale ayagana 100 arday ah oo isugu jira rag iyo dumar farsamooyinka gacanta inta badan barta caafimaadkii cilaankii harqaankii iyo waxyaabo loogu talagalay inay ku shaqeeyaan maadaama dalku uu ku jiro xaalad iska adag aan ugu talagalnay dadka danta yar iyo dadka caruurta agoonta ah haysta inay ka faa'iideystaan ay ku shaqeystaan sidoo kale waxaa jira xarun ku taala degmada Afgooye ayaguna waxaa dhigta caruur agoon ah iyo sidoo kale kuwa dan yara markii aan ka hadalno waxqabadka waxbarashada intaas iyo ka badanba waxaan rajeynayaa insha Allah inaan ku sii dari doono hadduu eebid insha Allah sanadaha soo socdo sidoo kale waxaa jiro waxqabad indha fiiqid ah oo Maamud Foundation ay qabteen dad fara badan oo waayeelo ah rag iyo dumarba isugu jira gobolada dalkana loogu fiiqay indhaha magaalada Muqdishona dhowr jeer loogu fiiqay isbitaalada ku yaala wax walba hanagu qaadatay waxaan ugu talagalnay dadkaas waayeelada ah ee aanan haysanin inay indhaha fiiqdaan indhihiina ka xanuunsan inay ku daawoobaan oo inoogu duceeyaan oo walaalaha Maamud Foundation hadafkoodu uu yahay gargaarka agoonta iyo danyarta intaba sidoo kale waxaa jiro qayb biyagelin markii la maqlo waxaa la soo xasuusanayaa ceelal iyo waxyaabo noocaas ah magaalada Muqdisho kala gobolada kale waxaan sameynay ceelal aan ka qodnay ceelalkaas aan ugu talagalnay dadka kaamamka degan inay isticmaalaan magaalada Muqdishona waxaa jira tubooyin aan u xariirinay dad degan kaam ilaahay ku madarnaaday kaamka ugu horeeyo oo aan hadda ka xasuusano waxaa kamid ah kaam ku yaala degmada Kaxda kaamkaas biyaha ay cabaan tubada waxaa soo galiyay Maamud Foundation sidoo kale waxaa lacagta tubadaas ay soo saarta bil walbana bixiya Maamud Foundation ilaa iyo bisha hadda aan idin hadlayno oo Abriil 2022 sidoo kale waxaa jira qayb dhar qaybin ah dhar qaybinta waa midda maanta aad u jeedaan ciid waliba markii la gaaro Ramadaanka oo kale markuu dhamaado walaalaha Maamud Foundation oo kaashanaya walaalaha gargaarka agoonta waxay sameeyaan ciidsiin ku dhawaad boqolaal arday amba boqolaal caruur agoona maanta waxaad u jeedaan maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay 28 bisha Abriil 2022 Ramadaankuna wuxuu maanta ku beegan yahay 27 bisha Ramadaan maalmo qura ka harsan maalmaha ciida boqolkan caruur oo gabdho iyo wiilal isugu jiraba hadduu eebid insha Allah dharkooda ciida waxaan rajeynayaa inay waalidiintoodana u duceyn doonaan dadka soo sadaqaystay caruurtoodana ay farxi doonaan caruurta kaleeto ee waalidiintooda wax haystaan ee waalidiintooda u nool yihiin inay la ciidi doonaan maalintii ciida hadduu Ilaahay raaxo insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan sanadka ka dambeeyo aan si laba jibaari doono haddii aan nahay walaalaha Maamud Foundation iyo sidoo kale walaalaha gargaarka agoonta waxaa jiro sidoo kale afurin qayb ah bisha Ramadaan maalintii dhalatay ilaa iyo maanta ay marayso 27 waxaan soo wadnay afurin oo aan ka wadnay kaamamka magaalada Muqdisho iyo sidoo kale kaamam ku yaala degmada Afgooye iyo kaamam kale ku yaala degmada gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooyo kaamamka ku yaala waxaan
bishii barakeysneed ee ramadaan siday u dhalatay ilaa iyo maanta oo gabagaba ay sii marayso aan soo afurinaynay boqolaalo markay ugu yaraato 150 qoys markay ugu badato 200 oo qoys oo aan rajaynayna insha Allah inaan ka sii badino ramadaanada soo socda hadduu ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo haddii aan nahay walaalaha Maamud Foundation sidoo kale waxaa jiro qayb daryeel caafimaad ah kaaman fara badan oo magaalada Muqdisho ku yaal iyo goboladaba waxaan geynaa daawooyin ay ugu tala galeen walaalaha gargaarka agoonta iyo Maamud Foundation oo isgarabsanaya dad kaamkaas degan oo loogu tala galay inay ku daawoobaan maadaama ay dad oo daawo iyo garab iyo waaye ay yihiin annaguna waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan sii daa'imi doono hadduu eebed insha Allah sidoo kale wax qabadka Maamud Foundation waxaa ka mid ah ceel qodis degmada Afgooy kaliya waxaan ka qornay bilihii hadda aynu soo dhaafnay ee sanadkan 2022 ku dhawaad 4 ceel iyo 5 ceel kismaayo sidoo kale ugu yaraan 5 ceel iyo 6 ceel aan rajaynaynaa insha Allah inaan intaas ka badan aan sanadka soo socdana qaban doono hadduu eebed insha Allah haddii aan walaalaha Maamud Foundation sidoo kale waxaa jira bixinta kitaabo qur'aan oo dugsiyo fara badan oo magaalada Muqdisho ku yaal aan geenay sidoo kale waxaa jira arday agoona oo dugsi qur'aan aan geenay macallimiinta dugsiga qur'aanka aan ku ognahay oo aan ardayda dugsiga dhigata ay la mid yihiin ardaygii aabihiis uu noolaa markii lacagta laga dhiibo Maamud Foundation iyo walaalaha gargaarka agoonta isgaashanayana waxay sameeyaan ardaygii agoonka ahaa waxay ka dhiibaan lacagtii waxbarashada amba ha noqoto mid iskool amba ha noqoto mid dugsi qur'aan waxaa jira iskuulo fara badan oo ka mid yahay iskuulka Al-Fajri oo ay noo joogaan arday fara badan oo walaalaha Maamud Foundation hoos yimaada lacagta bishana bil walba ayaga si toos ah uga dhiibo sidoo kale waxaa jira marka dugsi qur'aano aan kutubadaas qur'aanka gaarsiinay saliyaal aan gaarsiinay waxaan rajaynaynaa insha Allah intaas in ka badan inaan qaban doono hadduu eebed insha Allah sanadaha kala dhisida dugsi qur'aan dugsiyada qur'aanka ee magaalada Muqdisho laga dhisay hal ma aha laba ma aha saddex ma aha waa dugsiyo dhowr ah sidoo kale gobolada degmada Afgooy ugu soo horeyso ayaduna waxaan ka dhisan dugsiyo qur'aan kismaayo sidoo kale waxaa ku yaala dugsiyo qur'aan Maamud Foundation iyo walaalaha gargaarka agoonta ay sameeyeen wax qabadkaas oo dhan waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan sii laba jibaari doono haddii aan nahay walaalaha Maamud Foundation maantana waxaan ku faraxsanahay haddii aan nahay walaalaha Maamud Foundation amba walaalaha gargaarka agoonta in aan maanta ciidoodii iyo dharkoodii ay ku ciidi lahaayeen iyo alaabtii ay ku ciidi lahaayeen ee nalalkii ay isticmaali lahaayeen maalinta ciidda oo yoomul farax ah inaan maanta u keenno 100 qofood amba 100 qofood caruurtii ay dhaleen hooyooyinkoodii nala jooga sidoo kale waxaa nala jooga waalidiin oo aan ugu tala galnay xataa ayaguna dharkooda ciidda waalidkii macawistiisii cimaamadiisii aan ugu tala galnay waalidiin waxaa iska jira danyara sidoo kale waxaa jira maamooyin xaajiyaalkoodii ay ka dhinteen oo maadaama loo gaday cunugii dharkiisa ciidda hooyaduna xaqay leedahay dharkeeda ciidda ayadana waa loo hayaa waxaan rajaynaynaa insha Allah ayaguna inaan sii doono Soma, 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 بشهر رمضان soma, 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 soma. Sunnadiyo faradka oga, fuqarada sakada siiya. Sunnadiyo faradka oga, fuqarada sakada siiya. سقط دحن الكتاسة ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا